السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليغا قاليغا وإذن سلامي دمان ميل والبا الدنيا كجوجتين إلهي ها إذن كحفظ الله ها إذن بركة إرساقات واسع الله نوغا ديغو أولادنا إلهي باري ها نوغا ديغو نعموينك إلهي نسينو كو شكري الله نوغا ديغو انت حنوصلنا إلهي ها عافيو انت عافي ما تقبتنا إلهي ها أسياديو فضلا هدي أكو عصبتاي channel كينا هدى بنتي مختار سبسكرايب لايك شير كومنتي نوغو عاود طبعا عكس واي قصب ما جiro walaaleyga qaaliga sida iiga barateen caawa waxaa noo wada qisooyinkii ay iiga barateen mid ka mid ah caawa qisadayna waxay ku saabsan tahay Axmed iyo Diima Axmed wuxuu ahaa wiil yar oo 20 jir ah aadna u qurux badan ma sha Allah Axmed wuxuu aad u isticmaali jiray aaladda internetka yani waxay dhahan ayaga carabta tawaasul ijtimaaci dhan walbaba Instagram, Snapchat, Facebook dhan walba oo waxa internetka loo isticmaalo dhan aad uu isticmaali jiray saacad badan yani uu isticmaali jiray Axmed waxay iska barteen Instagramka waxay iska barteen gabar lagu magacaabo Diima iyo Axmed waxay ahaayeen dad asxaab ah si fiican isu fahmay laakiin wax xiriir aan ka dhaxaynin muddo kadib أحمد وحو قدك كواي ديمو سدح مالين عمل مركو قدك كواي وو مرقو وحو إسدحي وح تليفون أنا كلام قادن عادي قدك ليك شي كيسن جرين أصحابنا وي أهايين ما حدا عذي مرقا قبتي أحمد وحو إسدحي ديمو محاكو دعي مسجو أدري وح بغانو لحد لي وواي سدح مالين كدب ديما قدك كسو لابطي مركاسي وحي تري واكا حناقسانا محا إيسو رادي ويسي markaasoo dhaa wallahi 3 maalin aan ku raadinayo waana ku waaye aadana kaaga walwalaay markaasay waxay dhahday waa mashquulsanaay waxaan ku mashquulsanaay imtixaanaad laakiin hadda qadka waa ku soo noqday alxamdulillah marka Diima sideedaba iyada magaalada Axmed oo jooga leh dhinac ka degan tahay laakiin isma yaqaanaan ka aragti ahaan isuma yaqaanaan lambarana kala ma haystaan Diima waxa waaye hooyadeed aabaheed la nooshahay bas aabaheed aad ay asxaab u yihiin ay iskaga dhow yihiin yani hooyadeed iyo aabaheed aad iskugu dhow yihiin hore loo yiri gabar iyo aabaheed wallahi saas waa aniga gabdhayga aabahood aad ay u jecel yihiin gabar dhan aabaheed aad ay u jeceshaa ma sha Allah marka Diima waxay tiri marka aniga aabaheed si fiican aan iskugu fiicanahay waxyaalo badan oo waxa jira xataa markii aan soo qaangaaray waxyaalo badan oo ila soo gudboonaado ilaa adduunyada hadda iigu horleeday oo aqoonin aabaheed aan kala tashan jiray waxaan rabay inaan sameeyo wixii igu cusub oo soo arka aabaheed u sheegi jiray dhahday subhanallah markii dambe waxa dhacday Axmed inuu Diima dhaho Diima ani waa ku jecelahay marka iyada waa ku way jeceshahay Diima laakiin ka walaalnimo u jeceshahay ka asxaabay u jeceshahay uma jecla jecel gaar ah markaasay waxay tiri aniga ba aad ku jecelahay dhahday sababtoo ay waxa tahay walaalkay oo kaleeto wiila isfahanay inta qof yani aan qadka iska baranay inta qof qadka iska baranay wiilka kaliyo isfahanay yaa tahay waa ku jecelahay dhahday markaasoo dhahay kaas ma ahan jecelkaas ma aha laakiin jecel gaar ahan ku jecelahay yani aniga waa ku rabaa markaasay tiri lagama yaabo aniga nin aan internetka iska baranay inaan maxal dhahaa aan la sheekaysto markaasoo wuxuu dhahay walaalay saa u maleynaysid ma ahi waa ku bariyaa saasa idhihin xumaana ha ii fahmin nin mustaqbal raba ahay markaasay waxay tiri aniga ma rabo nin internetka iska baranay ma rabo marka Diima iyada waxaa la siiyay wiil ay ilma adeer yihiin laakiin iyada ma oga aabaheeda siiyay laakiin iyada war kama hayso kadib adi waxaa dhacday Axmed wuu xaawilay dhan walbo ka maray Diima ilaa waa iska naage waa iska soo jilacday way ka ogolaatay xiriirka kadib marka maxaa dhacday muddo sheekaysanayeen muddo kadib waxaa dhacday inay lambar kala qaataan dhowr bilood 6 bilood camal markay is yaqaaneen ee lambar kala qaateen Axmed marka wuxuu dhahay maadaama hadda dad saaxiibo aan nahay daruuri waa inaan is aragno maxaa dhahay isku meelna aan ku noolnahay mustaqbalna aan ka rabo waxa waaye inaan is aragno way ka ogolaatay Diima markay Axmed aragtay ma sha Allah wiil aad u qurux badan waa iyadana aad u qurux badan tahay Diima ilaahay amarkiis waxa dhacday Diima iyo Axmed markay is arkeen يعني مدة أركاين شيكيسناين ديما وحي سميسي aabaheed iyo hooyadeed ay Axmed u geysay ee bartay wiilkan asxaabanahay internetka iska baranay iskool islama dhigano laakiin
internetka iska baranay asxaabaan nahay dhahday khalaas aabihii wuu soo dhaweeyey gabadhiisa aad u jecel yahay aabayaasha oo macnaha mana ahan oo gabdhahooda xayiraayo oo wax walba u diidaayo ka celinayo xornimada ka qaaday ma ahan aabo mutafaahimo idii asaga iyo gabadhiisa isfahmeen waay waxaa dhacday muddo kadib axmed wuxuu dhahay waxaan rabaa aabaha inaan kaa doonto oo aan maxaa dhahaa isheeg aan ku guursada aabaha u sheeg waayahay dhahday aabey anaa u sheegaya kadib aabaheeday u timid waxay dhahday aaba miyaa aniga waxaan rabaa axmed waa isfahanay inaan isguursano markaasoo wuxuu dhahay aaba waa ka xumahay ani gabadheedaa tahay dooqaagana waa kugu raacsanahay mana kuu diidani axmed kuuma diidani laakiin wiil adeerkaa dhalay aa mar hore ani aan ku siiyey markaasay dhahda hadday saas tahay khalaas axmeda u dayrinaa markaasay waxay tiri axmedow saasaa jirto wuxuu dhahay maya saasaa yeelin aniga waa ku jeclahay aabahana waa isfahansantihiin ma u malaynayo inuu ii kaa diidayo haddaa adiga tiraahid yani ninkan anaa raba anaa keensaday markaasay dhahday aniga amarka aabahay ma jibinayo maxaa yeelay jecelka adig aan kuu qabo waxaa ka weynay dhahday aabahay sidaa u jeclahay amarkiisana kama hor imaanayo markaasoo wuxuu dhahay okay saas miya haa marka wuxuu dhahay aniga anaa ma astaslam yani isma dhiibayo dhahay lisa cindi amal dhahay weli rajaan leeyahay laakiin waa iska kaa sugaa dhib malaha waxaa dhacday axmed ma gooynin diimo yani sidii ma oga xanaaqin faraha kama qaadin lisa asxaab ayagoo weli oo asxaab ah oo is arkaayo oo yani meelo badan ku kulmaayo waxaa dhacday maalin maalmaha kamid ah waxaa layiri maanta waa qatiibkii oo diimo waaye ninkia soo doonanayo in adeerkeed aa lagu darooya maanta aa lagu meherina qalas axmed wuu iska quustay wuxuu is yiri maadaama oo asaga dhan kasta xataa wuu ka maray wuxuu isku dayay inuu dhaho xataa aan isla fakano maxaa dhahaa isheeg isboobno markaasay dhahday maya aniga aabahey lagama yaabo inaan ka hor imaado qalas maxaa dhacday maalinkii oo qatiibka diimo axmed wuxuu go-aansaday inuu magaalada ka tago oo saafiro maalinkii oo diimo la mehrinayay axmed wuu saafiray magaalo kale shaqo u aaday waxaa dhacday markii oo magaalo kale shaqo u aaday muddo bil ah markuu maqan yahay waxaa dhacday diimo inay xanuunsato yani waxaa ku dhacay cuduraa ku dhacay oo qatiir yani cudur xuna ku dhacay iyadana mutaxatime ahayd aadna waxay uga murgi jirtay markuu axmed ka tagay walwal badana ay la kulantay marxalado badan oo aad u adag ay la kulantay adi axmed oo bil camal maqan diimo way xanuunsatay hadday xanuunsatay isbitaalkaa la dhigay isbitaalka haddii la dhigay diimo isbitaalka waxay taalay 1 sano oo kaamil ah halkaas sano hal maalin xataa wiilka qatiibka oo in adeerkeed ahay uma imaanin yani wiilka oo iyada oo lagu la siiyey uma imaanin ilaa amarkiis waxaa dhacday axmedna wax war ay kama helin loomana sheegin inay diimo xanuunsan tahay diimo aaday u tacbaantay sanad kaamil ee isbitaalka taalay hooyadeed iyo aabaheed aaday uga shalaayeen inay u diidaan axmed waxaa dhacday wiilkii marka oo diimo qatiibkeeda ahay markay muddo bilooyin ay ku jirto wuxuuba dhahay khalaas aniga ma rabo waxaan rabaa isheeg inaan kala tagno diimo fasaxay iga tahay sidii oo wiilkii ay ku kala tageen iyada lisa iyadoon macnaha oo aan la guri geynin laakiin oo qatiib ay u tahay u doonan tahay wiilka in adeerkeed ah oo iska deeriyo dhahay ma raba in adeertay bas iga tahay mana soo salaamin isbitaalkana ugu imaanin 1 sano kadib waxaa imaaday axmed asagoo ka fikiraya diimo markuu baxayna wuxuu dhahay ana raayax bas lisa cindi amal yani waa baxaa laakiin weli rajaan leeyahay in aan diimo helayo waxaa dhacday diimo markuu ka tagay yani markuu soo noqday axmed oo gasdi oo kusoo noqday magaaladii ma tagin gurigooda maalinkii oo magaalada soo galay oo safarka ka imaaday diimo gurigooda hor istaagay wuxuu is dhahay yumkin ashuufuu dhahay mina baciid xataa haddaa meel dheer ka arko yani igu filan ilaahay amarkiis waxaa arkay diimo aabaheeda arkay axmed wuu u wacay marka ugu horeysana wuu raali geliyay wuxuu dhahay aada oga xumahay yani in aan maxaa la dhahaa isheeg diimo kuu diido saan inay dhaceysana ma ogeen diimo way xanuunsan tahay cudurka hayana waxba lagama qaban karaan dhahay saas uu ogow axmed asagoo aada u murugaysan oo ka naxsan dhibaatada diimo haysato ama yani sida ay diimo noqotay oo wuxuu dhahay isbitaalka aadaa lilasaf axmed oo ordaya isbitaalka imaaday wuxuu imaaday qolkii diimo oo faadi ah sariirtii oo faadi ahuu imaaday diimo allah yarxamaha hal dhahay
inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. marka waxaa jirtay diimo warqad ay qortay aa jirtay oo ay axmed u qortay, laakiin ay dhahday yacni markii oo isbitaalka ay ku jirtay aysan u dhiibin aabaheed, aysan siinin, oo aqraadkeeda alaabteeda oo ku dhex jirtay, laakiin aan qofna ogeyn. waxaa dhacday diimo markay dhimatay oo axmed isbitaalka uu tagay, subxaan allah, waxaa dhacday diimo markii la duugay oo alaabteeda lasoo qaaday oo axmedna aada iskaga murugaysan yahay, wiilkii in adeerkeed ahay oo loo qadiibano wala cala baalo, yacni hadday dhimatay iyo hadday xanuunsaneedba aan kala jecleen. waxaa dhacday gurigay imaadeen. guriga hadday imaadeen, maalin maalmaha ka mid muddo markay kasoo wareegtay diimo dhimashadeeda maalin maalmaha ka mid diimo aabaheed wuxuu u wacay axmed. markaasoo wuxuu dhahay alaab ee diimo kaaga tagtay aan kuu hayaa. waa u imaaday, warqadii u dhiibay. marka axmed warqadii wuxuu la galay qolka diime ay ka deganeed gurigooda. guriga diime iyo imaaday, qolka diime iyo la galay. warqadii uu furay, waxay dhahday, marka warqadii furay uu aqrinayo, waxay dhahday xabiibi axmed ay dhahday, aad waxaa uga xumahay dhahday sida aniga aan kuula dhaqmay, yacni sida aa ii jecleed ma kuugu bedelin jecel saas u badanay dhahday. waana awoodi waayay tiri in aan maxaa dhahaa isheeg aan adduunyadoo dhan intaan la xaaribo adiga aan ku raaco, waa ii suurtageli weysay tiri. waxaan yeelay hadalka waalidkii, igana raalli noqo. laakiin waxay dhahday warqadan aniga waa ogaayay dhahday markaa isbitaalka tagaayo, horta waxaan qadar lahu maa shaa facal waaye. qof walbana markuu dhimanayo asaga ma oga, ilaahay subxaana watacaala basaa og. marka way iska leeyihiin dadkan yacni sheekooyinka, qisooyinka iyo maxaa la daraamada iyo maxaa dhahaa waxyaalaha badan oo hadda anaga aan la kulmayno. aniga qisooyinkan carabi waaye, meelaha kasoo aqriyaa, kadib aa af soomaali aan kasoo dhigaa, idinka idinla wadaagaa. waxaa waaye qisooyin waxaa jiro waaqici oo jiro, iyo qisooyin waxaa jiro ee khayaali ah oo la iska mala awaalayo, iyo qisooyin waxaa jiro jeceel oo romantic oo yacni iyo wax oo musalsalaadka wax laga sameeyo iyo. laakiin dadka maxaa lahaa isheeg qaar qisooyinka markay qorayaan oo qisooyinka meelaha kasoo aqrinaya markaa soo arko, dadka qaar waxay ka dhigayaan qofka qisada ku dhacday in uu og yahay inuu dhimanayo. horta ilaaha og in la dhimanayo, goorta la dhimanayo ilaaha og, waa la wada dhimanaa horta, kulli nafsin daa'iqatul mawt. laakiin ma fiicna takhayalka, ma fiicna. subxaana watacaala basa wax og, annaga waxaan ognahay malahan. marka waxay dhahday ana kunta adri inaa markaa isbitaalka haddii la igeeyo cudurka igu dhacay, markaa ogaaday haddii isbitaalka inaan anoo nool la iga soo bixinaynin oo aan ku dhimanayo waa ogaay. laakiin waa kula dardaarmaa, waxaan kuula dardaarmaa yacni ha ismurugeynin, xasiinan noloshaada inta ka dhiman ha ahaanin. murugtana waa laga gudbaa, dhibaatada waa laga gudbaa. waxaana qadar allahu maa shaa facal, ilaahay qadarkiisay ku dhaceen. waxa kaa codsanaa shuuf xayaatag laa tastaslim, inaad noloshaada hore uu socodsiisid, guursatid, mustaqbal samaysatid. ankaa maxaa kaa codsanahay dhahday. axmed maasha allah waxaa maxaa dhahaa dardaarankii diimo wou ogolaaday, wou guursaday, alxamdulilah rabbilcaalamiin. yacni waxaa lagu dhahay usrow samaystay, yacni wou guursaday, nin reer lahow noqday. gabadhii ugu horeysay oo loogu cortane waxaa loo bixiyay diima. marka walaalahayga qaaliga ana waxaa jeclaystay qisadaas carabi waaye, sidaa inta ka arkaysiin maxaa la dhahaa isheeg iyadoo carabi ahaan soo aqriyay. ana waxaa jeclaystay inaa af soomaali idinkula wadaago. aada u mahadsantihiin walaalahayga qaaliga. fi amaan allah.